hooyo kasta waa haliyey horumar u horseeta hanadkeeda. Thomas Edison ayaa maalin soo galay guriga, wuxuuna warqad u dhiibay hooyadii, wuxuuna ku yiri maalinka ayaa warqadan ii soo dhiibay, wuxuuna igu amray inaan u dhiibo hooyadii oo keliya. Hooyadii markii warqadii kala furtay, waxaa indhaheeda ka yimid ilmo fara badan, waxayna bilowday inay warqadii kor u akhriso wiilkeedii iyadoo leh sidadan: wiilkaagu waa cabqari, aad u maskax badan, iskuulkana aad buu u yaryahay oo mahayna macallimiin tayo leh oo wiilkaaga tababari kara. Fadlan adiga waxbar ama meel kale oo tayo fiican geyso. Waqti badan kadib, Thomas Edison wuxuu hindisay oo adduunka kusoo kordhiyay waxyaabo fara badan oo aan horey u jirin, waxaana ka mid ah nalka aan maanta isticmaalno, isagoona ka mid noqday hindisayaasha ugu caansan caalamka ee wax weyn kusoo kordhiyay. Sanado badan kadib, markii ay geeriyootay hooyadii, ayaa maalin gurigii ku noqday, wuxuuna bilaabay inuu eego alaabtii qadiimiga ahayd ee reerku lahaa. Wuxuuna arkay warqad isku laaban oo qaanad ku jirta. Wuu kala furay, wuxuu aqoonsaday in warqadu tahay midii macalinku u soo dhiibay markii uu yaraa, waxaana ku qoran sida tan: wiilkaaga maskaxda ayuu ka jiran yahay, wuuna fahma liitaa, oo kaalmayn inuu iskuulka yaga sii dhigto eena dhaafi oo xaafadda ku hayso. Hooyadu maynan aqrin waxa saxda ee ku qoran warqadda si aysan u niyad jabin wiilkeeda. Ugu dambeyntii, hooyadu waa lama huraan ku horseedaysa wax walba ee aan u duceynayno hooyo kasta oo nool. Allah caafimaad iyo cimri dheer ha siiyo, intii dhimatana Allah naxariisto. Aamin.